بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، درسigani waa darsigii 11aad ee ka mid ah duruustii imtixaanaha inoo ahaaday oo aan ka wadnay kitaabkii ahaa al-ajruumiya. waxaa inoogu dambeeyey oo aan soo qaadanay nasbada iyo calaamadaheeda iyo calaamadahaasu meelaha ay degi lahaayeen. nasbadu waxay laheeday 5 calaamadood. 5taa calaamadoodna waxay degeen 8 boos ayay degeen. maanta insha allahu tacaala waxaan baran doonaa khafdada iyo calaamadaheeda iyo calaamadahaasi meelaha ay degi lahaayeen, jasmada iyo calaamadaheeda iyo calaamadahaasu meelaha ay degi lahaayeen ayaan baran doonaa insha allahu tacaala. sheekha wuxuu yidhi walilkhafdi, hoos dhiga waxaa u sugnaaday 3 calaamaatin 3 calaamadood: alkasratu hoos dhig, walyaau ya-i walfatxatu kordhig. fa ama alkasratu hoos dhiga miya fatakuunu waxay ahaanaysaa hoos dhigu calaamatan calaamad ayay ahaanaysaa lilkhafdi hoos dhiga ayay calaamad u noqonaysaa fii 3 mawaadica 3 boos fi lismi lmufradi isimka mufradka dhexdii almunsarifi hoos dhiga aqbalayay wa jamci taksiiri iyo jamcu taksiir almunsarifi hoos dhiga aqbalayay wa jamci almu'anath asaalim iyo jamcu almu'anath asaalim. wa ama alyaa-u ya-da miya fatakuunu ya-du waxay noqotaa calaamatan calaamad ayay u noqotaa lilkhafdi hoos dhiga fii 3 mawaadica 3 boos dhexdooda fi lasmaa'i alkhamsati asmaada 5ta dhexdeeda iyo wa fi tathniyati asmaada tathniyada ah iyo waljamci jamcu mudakar asaalim. wa ama alfatxatu fatxada miya fatakuunu fatxadu waxay noqotaa calaamatan calaamad ayay u noqotaa lilkhafdi hoos dhiga fi lismi isimka dhexdiisa alladii isimkaasoo laa yansarifu hoos dhiga aan aqbalay. sheekha wuxuu leeyahay khafda waxay leedahay 3 calaamadood. kelimadan inay hoos dhigan tahay waxaa lagu garan karaa 3 calaamadood baa lagu ogaan karaa. waa calaamada koowaadee kasradii caadiga ahaa, kelimada inay hoos dhigan tahay. hadday kelimadani hoos dhigan tahay cid la weydiinaya ma jirto inay hoos dhigan tahay, hoos dhig waa ka muuqdaaba. calaamada labaad ee lagu aqoonsanayo kelimada inay hoos dhigan tahay waa ya. calaamada saddexaadna waa fatxa kordhig weeyaan. kasrada waxaa la kasriyaa oo la hoos dhigaa 3 meelood. kan koowaade isimka mufradka ah ee hoos dhiga aqbalayo. haddii lagu yidhaahdo isimka mufradka ah ee hoos dhiga aqbalayo waxaa dareeme inuu jiro isim mufrad ah hoos dhiga aan aqbalayn, soo ma? marka isimka mufradka ah oo hoos dhiga aqbalayo waa la hoos dhigaya. jamcu taksiirka hoos dhiga aqbalayana waa la hoos dhigaya. jamcu lmu'anath asaalimna markii la rabo in la hoos dhigo hoos dhiga caadigaa la saarayaa wey. 3 meelood waa la hoos dhigayaa wey. waaya ya-duna waxay degtaa 3 boos. asmaa'u lkhamsa asmaada 5ta ah oo markii la godaayey waaw lagu godaayey, markii la kor dhigaayana alif lagu kor dhigaayey. maanta markii la hoos dhigaayo waxaa lagu hoos dhigayaa ya. tathniyada markii la godaayo waxaa lagu godaayey alif. markii la godaayey waxaa lagu godaayey alif. markii la kor dhigaayana waxaa lagu kor dhigayay ya. maantana waxaa lagu hoos dhigayaa ya. jamcu lmudakar asaalim markii la godaayo waxaa lagu godaya waaw. markii la kor dhigaayo waxaa lagu kor dhigayay maxay? ya. markii la hoos dhigaayo maantana waxaa lagu hoos dhigayaa ya baa lagu hoos dhigayaa wey. fatxaduna waxay degtaa 1 boos. isimka mufradka ah oo hoos dhiga aan aqbalay ayaa lagu kor dhigaa fatxada. isagoo kor dhigan ayaa waxaa leeyahay isimka mufradka ah waa hoos dhigan yahay baa laleeyahay wey. sida ibraahim iyo ismaaciil iyo shacbaan iyo wixii lamid insha allahu tacaala baab kale iyo mar kale ayuu iman doonaa. walilkhafdi hoos dhigu 3 calaamaatin 3 calaama ayuu leeyahay: alkasratu hoos dhiga iyo walyaa-u ya-da iyo walfatxatu fatxada. wa ama alkasratu hoos dhiga miya fatakuunu kasradu waxay noqotaa calaamatan calaamad ayay u noqotaa lilkhafdi hoos dhiga fii 3 mawaadica 3 boos fi lismi lmufradi isimka mufradka dhexdiisa almunsarifi ee hoos dhiga aqbalayo wa jamci taksiiri iyo jamcu taksiir
جمع تكسير المنصرف وصدق أقبل أي وجمع المؤنث السالم هي جمع المؤنث السالم وجمع هبلها النبات قليل إن لججبيك النبات قليل وأما الياء ياء ذمية فتكون ياء وحين قطع علامة أي أن قطع للخفض وصدق في 3 مواضع 6 بوس في الأسماء الخمسة أسماء شنطة لحد يدئي وفي تثنية لحد يدئي والجمع جمع الحديث وأما الفتحة فتحة ضمية فتكون فتحة وحين قطع علامة أي أن قطع للخفض وصدق في الاسم اسم كالحديث الذي اسم كاسو لا ينصرف وصدق عن أقبلين وللجزم رابك وحو ليهي oo u sugnaatay calaamataani laba calaamadood السكون والحذف waaya halkaana waxaan ka galaynaa raabka hadda waxaan ka soo baxnay khafda waxay leedahay 3 calaamadood saddexda calaamadood calaamada koowaad kasra la yiraahdaa waxay qaadatay oo degtay 3 boos calaamada labaad iyo ayay aaday waxay degtay 3 boos calaamada ugu dambeysay fatxada ah waxay degtay 1 boos 7 boos ayay degtay weeye 8 boos ayay ahaayeen 1 boos ayaa ka maqan waana ficil lama hoos dhigo وللجزم راب كمية علامتان لبا علامة أيو ليه السكون راب إيه والحذف حذف فأما السكون كإيه راب كمية فيكون سكون وحو نقضى علامة أيو نقضى للجزم رابك في الفعل المضارع فعل كمضارع حديثة الصحيح الآخري آخر كيسة صحيح وهاوي عافماتك غبي وأما الحذف حذف كمية فيكون وحو نقضى علامة أيو نقضى للجزم رابك في الفعل المضارع فعل كمضارع المعتل الآخري آخر كيس أو جرنا إيوه في الأفعال 5 أفعال شنطة التي أفعاشها سو رفعها قد كذا أو هذا بثبات نون تسويتان كذا أو هذا جزمته وحي لا ذا لبع علامات أما كلمة دان إني ريبانتا وحالوا أقون سكرا لبع علامات علامات كوبات والسكون رابوي وحو دقا فعل كمضارع وصحيح الآخر كأه صحيح الآخر وحا laga wadaa ficilka mudaaric ee caafimaadka qaba laga wadaa waayahay xadafkuna wuxuu degaa ficilka mudaaric oo muctal aakhirka ah aakhirkiisa oo jirana iyo afcaal khamsa ficil jiran iyo ficil caafimaad qaba waxa laga wadaa ficilka jiran muctal aakhirka waxa laga wadaa ficilka 3 xaraf ku dhamaato alif iyo waaw iyo ya 3 xaraf هذا فعل كل دماده waxaa loo yaqaanaa muctal aakhir ficil aakhirkiisa oo jiraya uu noqonaya 3 xaraf aan ahayn xurufta soo hartay xaraf kamid ah ku dhamaadana waxaa leeyahay ficilkan waa ficil caafimaad qabo saxiix aakhir weey marka 3 xaraf oo xuruful cilla loo yaqaano ama xurufta jirada loo yaqaano waaw iyo alif iyo ya waaw iyo alif iyo ya هذا فعل كل ما هذا وحلو يقانا فعل جرل هذه حروف تكلي صهرت وكل ما هذا وحلو يقانا فعل عافمات قبا يلو يقانا وي marka ficilka caafimaadka qaba waa baranay midka jirana waan baranay sooma midka caafimaadka qaba markii la reebayo reebka caadiga fuulay midka jiran maxaa lagu reebaya waxaa lagu reebaa xarafka jiran baa laga jaraa xarafka jiran ee alifka ah ama waawga ah ama yaada ayaa la jarayaa wey sida yarmi yakhsha yad'u oo kala sooma markii la reebayo waa la jarayaa wey yad'u yarmi yakhsha ali xarafka jirada 3 xaraf oo jirada ah ayaa la gooynayaa wey afcaal khamsahana markii la rabo in la reebo nuunkii ayaa laga jarayaa wey markii aan soomaynay godka nuun baa loo goday sooma yafcaluuna tafcaluuna allah sooma maanta markii la reebayo waxaa laga gooynayaa maxay nuunkii la jaraa yafcalu tafcalu tafcala tafcali ali وللجزم راب كمية علامتان لبا علامات أيو ليه السكون سكون إيه والحذف حذف فأما السكون راب كمية فيكون وحو نقضى السكون علامات أيو نقضى للجزم راب في الفعل المضارع فعل كمضارع حديث السهل الآخر آخر كيس أو عافمات كغضي وأما الحذف حذف كمية فيكون حذف وحو نقضى علامات أيو نقضى للجزم رابك في الفعل المضارع فعل كمضارع المعطل الآخر آخر كيس أو جرنا وفي الأفعال 5 إيه أفعال شنطة
allatii afcaashaasoo rafcuhaa godaalkeeda u ahaaday bithabaati nuuni nuunta sugitaankeeda. maanta waxaan qaadanay khafda iyo calaamadaheeda iyo calaamadahaasoo meelahay degi lahaayeen, jazma iyo calaamadaheeda iyo calaamadahaasoo meelahay degi lahaayeen ayaan qaadanay. halkaa inoo joogo insha allah. wallahu aclam. sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin.